بسم الله xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka agaasimaha xiriirka degmooyinka dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadan sida weyn ee quruxda badan loo soo agaasimay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh bacda salaam waxaan u mahadcelinayaa Allah subxaanahu watacaala ee nagu kulmiyey munaasabadan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed oo fursad ii siiyey inaan u shaqeeyo dalkayga iyo dadka Soomaaliyeed khaasatan oo ii soo magacaabay degmada Wadajir runtii degmada Wadajir waa degmada aan ku dhashay ku barbaaray waxaana aan ku bartay isla markaana aan deganahay aan joogo waqti walbo aanan ka maqnay waqti walbana aan ka maqnay sidoo kale ogna marxaladihii kala duwanaa ee soo martay degmada Wadajir waxaan rabaa inaan halkaan ugu mahadceliyo bulshaweynta reer Wadajir inaan ku ammaano sida ay isugu xiran yihiin ayna ugu xiran yihiin maamulkoodana jecel yihiin dowladnimada taasoo caddaynaysa siday ula dagaalameen cadowga argagixisada ugu dambeyn ma raba inaan khudbadeeda ku dheeraado waqtiga oo gabagabaa awgeed waxaan idinka raaligelinayaa soo daahitaankii aan idinka soo daahnay madaxda meesha fadhiso waxaan ka raaligelinaynaa iyo shacabkaba xoogga ay u dulqaateen waxaan rabaa inaan laba arrimoodba aan ku soo gabagabeeyo khudbadeyda midda koowaad waxaan codsanayaa maamulka madaxda gobolka Banaadir iyo degmada iyo laamaha amniga inay ila shaqeeyaan ayna si hufan ila shaqeeyaan iyo shacabka reer Wadajir inay ila shaqeeyaan waxaan rabnaa inaan ka sii wadno dadaalka meeshiisii midda labaad waxaa iga go'an inaan si daacad ah ugu adeego bulshada reer Wadajir waxaana noqon doonaa mid idin dhegaysta khaasatan isla markaana baahidiin wax ka qabta waad mahadsantihiin waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha aan xilka la wareegayo ee iga horreeyey meesha uu degmada soo gaarsiiyey waxaan rabaa inaan reer Wadajir haddaan nahay 17 degmo boqolka maalmo ugu horeysa waxaan rabaa inaan noqono 17 degmo mid ugu horeysa ee ka shaqeysa amniga iyo nadaafadda iyo arrimaha bulshada waana mahadsantihiin intaasaan ku soo goobayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh